قاعدين float waxaa la float ayaan isla arkaynaa maanta si aan warano wax la wado hal example amba hal tusaale ayaan qaadanaynaa kadib waxaa leeyahay glass ayaan qabsanayaa dif ayaan sameynayaa magac alaale magacaara u bixin karaa box oo kala dhigi karaa wax alaale waxaa rabto muhiimadu waa inaad hadhow xasuusan kartaa kadib image ayaan qabsanayaa imagekan kadib waxaa leeyahay okay number 1 iga leeyahay kadib paragraph ayaan qabsanayaa kadib qoraal ayaan dhexgelinayaa okay kadib browserkeena ayaan tegaynaa oo isla arkaynaa okay waxaan haysanaa hadda intaan ayaan haysanaa okay qoraalka ayaan wax yar badsanayaa toban oo kale ama soo ujeedin wuu naga baxayaa soo intaa tagaa view kadibna waxaa leeyahay word wrap timicnaha haddii uu leenka inta dhaafo loo soo jebiyey inta loo keeno okay kadib inta ayaa tegaynaa kadib waxaa leeyahay dot maxaa yeele waa glass waa kana box kan ayaan dooranayaa kadib width ayaan leeyahay waxaa ka dhigtaa 300 pixel okay kadibna border 2 pixel height okay kadibna refresh ala sida ujeediyaan intaan ayaan haysanaa okay image ayaan tagayaa marka image waa kana image ayaa leeyahay image width ayaan waxaan ka dhigayaa asigana width ayaan ka dhigayaa 40 pixel kadibna waxaa leeyahay refresh sida ujeediyay image waa yaraada adiga 50 pixel ama la dhigaa okay image-kaas ayaan haysanaa image baan si fiican loo arki maayo soo iska bedelina mid kale ayaan dooranayaa adi bloggan oo kale camal ayaan dooranaynaa kadibna refresh yes kana hadda kana si fiican loo arkaya widthka ayaan waxaan ka dhigayaa 100 pixel oo kale camal yes salaan hadda waa la arki karaa soo hadda ayaan float isla arkaynaa marka float iyadoo waxaa waaye float waxaa waaye asiga haddii aad rabto shaygan meesha inaad ka qaado kadibna aad keento inta waxaa isticmaalaysaa float okay floatka hadda ayaan isla arkaynaa wax alaale iyo wuxuu qabanayo inta ayaa tegaya kadib waxaa leeyahay imagekana waxaa leeyahay float okay right ayaa leh waxaa geysaa dhinaca midig balaaragna wax dhacay saa ujeedin float ayaan dhahay kadibna sawirkii waxaa la geeyay inta ayuu yeelay laakiin maxaa la keenay inta saa ujeedin paragraphkeena waxaa ku dhacay paragraphkeena booska oo jooga oo kasoo baxay booska sawirka ayuu galay sawirkiina waa kana inta ayuu imaaday haddii aadan rabin paragraphka inuu sidaas sameeyo kadibna oo jooga meeshiisa waxaa sameyn kartaa inaad dhahdo paragraphka aad doorato kadibna aad dhahdo clear aad dhahdo kadibna dhinacee sawirka u dirnay waxaan u dirnay dhinaca midig soo clear right aa leedahay dhinaca midig nadiif right inta ku qoraysaa inta wixii aad ku qortaa intana aad ku qoraysaa right kadibna refresh aa leedahay sida ujeedin paragraphka hadda wuxuu kusoo noqday booskiisii hore waxaa ogaataa markastoo waxa aad float aad garayso markasto float element aad ku sameyso kan ka dambeeya asagana saameyn ayuu ku yeelanaya haddii aadan rabin saameyntaas waxaa isticmaalaysaa clear waa kana haddii aadan rabin saameyntaas waxaa isticmaalaysaa clear soo padding yaraan ku daraya kaasuu soo sakinaya derbiyada padding 10 pixel oo dhinacyada lane padding ayaa ku daray haddii aan rabo inuu sidiisii ahaado clearkan hadda waa iska dhaafi karaa meesha ku dhaafaya hadda waa kaasa qaabkaas ayuu noqonaa haddii aad qaabkaas rabo oo fudaysanayo qoraalkii sawirka inuu saas iskula soo muuqdaan haddii aan rabo fudaysana haddii aan rabin clearka ayaa gelinaya waxaa kaloo dhihi kartaa float leftiga oo hadda ay joogta ayaa gei kartaa okay waa ka hadda left ayuu imaanaya qoraalkan waa kaasa
waxaa kaloo dhigi kartaa asigana clear both. hadda clear waa dhigi karnaa. hadda clear haddii aan dhehayno maxaa sameynaynaa? clear right haddii aan dhaho sidiisa ayuu qoraalka joogaya, maxaa yeelay booska aan floodka aan geliyey, dhinaca floodka aan geliyey ma dooranayo. so inta lefti waa intan right. right waa hadda sax maaha, so left ayaa leeyahay left. okay left markii aan dhaho kadibna qoraalka wuxuu imaanaya. waxaa kaloo jiro clear both. hadda waxaan dhahnay clear left ka nadiifi halkan dhinac. waxaa kaloo jiro clear both. clear both asiga waxaa la isticmaalaa markii aadan ogeyn dhinaca flood laga sameeyey, elementiga dhinaca floodka looga sameeyey. hadda tusaale image kale ayaan ku darayaa, kadibna source waxaa leeyahay block 4 kan ayaan ka dhigaynaa. okay kadib refresh ayaa leeyahay. waa kaas. hadda waa labadaas image, so labadooda si aan u kala duwo glass ayaan siinayaa. waxaa leeyahay glass waxaa leeyahay 2. okay kana 1 glass 1 ayaa sii, kana glass 2. okay inta imaamo kadib waxaa leeyahay dot 1 ayaa leeyahay, kadibna waxaa leeyahay float left gee dhinaca bidix gee, kadib number 2 taawo dot 2 dalbo asigana float white ayaa leeyahay. hadda fiir tusaale kan waxaa iska saaraya clearkan, comment ayaa iska saaraya, kadibna refresh ayaa leeyahay. qoraalku fiir sidoo dhammaay. hadda kan bidix sawirka bidix float ayaa ku sameynaa. so baladhahan qoraalka sidiisa hore ayaan ku celinaynaa, floatka aan ka bixino. paragraph ayaa tegaynaa. waxaa leeyahay paragraph clear left dhinaca bidix. waa kana sawirka oo bidix jiro float ayaa ku sameynaa. so inta color gelinana waxaa color gelinaa dhinaca bidix. okay clear dhacno. clear ayaa dhahay dhinacan qoraalka waa laga soo baxshay, laakiin dhinacan ayuu ku jiraa. so asigan dhinacan waxaa sameynaysaa labada dhinac. haddii aad rabto hal mar both ayaa leedahay clear both, labada dhinac markaas ayaa laga nadiifinayaa. okay kadibna waxaa leeyahay ayadan aan ka bixiyo horta iyo equaltan waxaa ma jiraan clear both le laga rabaa. kadibna waxaa leeyahay refresh. saa ujeedin waa kaasa labada dhinac ayaa laga baxshay. clear both markaas ayaa la isticmaalaa markii labada dhinacba aad rabtid inaad clear ku samaysid. haddii hadda kaligeed fiiri left adho both waxaa loo soo saar fiiri left adho keliya waxaa laga saaraya. hadda waa kana dhinaca bidixa laga soo saara right. haddana leeyahay fiiriya right ayaa leeyahay clear dhinaca midig ka saar waaye right ayaa leeyahay. okay kadibna waxaa leeyahay refresh. soo jeeda hadda dhinacan waa laga baxshay, laakiin sawirka haddii aad soo weyneeyo dhinaca ayuu soo gelaya, maxaa yeelay css waxbaa last rule clear left dhinaca bidix nadiif. haddana waxaa dhahda clear right kan ayaa la qaadanaya. tusaale hadda 1 ayaa tegaya, widkiisa ayaa badinaya fiiriya 100 iyo waxaa ka dhigayaa 60 oo kale oo soo sikinaya. soo jeedin waa kaasa qoraalku muxuu gelayaa inta ayuu gelaya, laakiin inta uu iska ilaalinayo inta ayuu gelaya. so clear both qaabkaas ayay ku imaado. waxaa leedahay clear both labada dhinac ka nadiifada. maxaa la sameynaa? labada dhinac ayaa laga nadiifinaa. kaas video intaas ku muuqaalka like saar, channel subscribe saar. mahadsanid booskiisii hore.